والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مدحويني هورا قدوميها قلك السنة قدومي هورا بارلبانكا قدومي كوعينكا قلك السنة دمان وزير هذا يحل باندا دمان مرتدى شرفت لبعض الصحافة وحالكم سلام مع السلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفنانين تميلوبي انت اسكدب فرصة وين تعاون أنا كسر قيب قلو حفلة القيم قايها بدن ورنتي ضد كسر مال السوقها بعملين أيام لما مناسبات لما بقالية مدة كوباد ومالنتي علنك مدة لبعضنا وحكم كي محكمة دونك كو أدنى رمها بدن وعلى ضد كسر مال المال الجوعان بعمليهم إلهي سبحانه وتعالى أنا أقوم هاد علينا إن جوشان أسرع كياني أسرع هجامي ضدك الصوماليين أسرع إلهي ربي وما سنته أنت أسكدب وحنوم علينا بدل قيلة ضواب بدنا سيدا صاحبك ويصفرنا وحوش جدا أصلي بدل قيلة ضواب بدنا مدحين حسن أنا الشيء وفهم كذا يا راي annaga marka talooyinkana la siiyay waxa kamid ahaa in aan ka hadlin badda Cabdiraxmaan kulle waa ogyahay xukuumadeeni sababtuna waxa dhici karta arrimo siyaasadeed iyo arrimo sharci inay ka yimaadaan dood ah hadaladeen marka maadaama hadda la xukumo waxa u maleena xoogaa yar waladii sheey kara markii ugu horeysay oo Kenya aan tagay oo madaxweyne Kibaki aa joogay aan la kulanno guddiga bixinay dawladda Kenya guddiga noo soo bixisay anaga guddigeena waxa madaxweyne Shariif Xasan waxa laga doodayay ajandaha laga hadlayo in meel la dhigo marka anaga tuban ajandaan wadanay dawladda Kenya waxay keeneen waxaan ku dareynaa hal ajanda oo badda ah anaga markaan dawladda la wareegnay lix xaafadood oo xamar ka tirsanaa madax ka nahay ayaga laftigooda shabaab aan la joogo وروح هذا أنا قبض كم هذا كرنا وحكي عن كهذا ما جرت على كل حال وحنقول عن الدولة الكينية بض كم هذا وكسر تقني مدة كدب أنت ذلك UN يا دولة نرويج يا بالعوضي أو كوا دناي أنت continental shelves حكومة ده وحلوه قنعية أنت أسنى لقوا مارمان تاني يكين أنا وحس كلام رجال عمر عبد الرشيد سجى حكومة ده جامعة وأنك أسجى حكومة دي ساقاتين سدوا عبد الرحمن الدين شاقي وحل ساري عبد الرحمن بلاكي أنا الملي لسعود سيني صباح ذا للصحيحة يا عبد الرحمن يصوع واكنا حول مدحون وأنت ساجرته هالشيء سال الربائن للصحيحة محي كلته وافكر مدحان قبص دور محي شيء يسال وحان إلوا صحيح يسال رجارة والكيسيات عبد الرحمن وابغي عبد الرحمن واحد سوستاء ملينا وحان إلوا رجارة والكيسيات وحي إلهي نقصيبه عمر ويرا وحان إلوا عمر ومحي يخر سارنتان حول أني وحان مودينا أكتر سيكو أغانا markii baqayla cirka isku darsantay badiyay gateen waxay noqotay aniga Umar iyo Cabdiraxmaan ka shakiyo aniga Cabdiraxmaan waa kana iyo Umar waligeena iskama warsan nin la arkay markuu arkay ninka lacag uga jeesan jiray marka ilaaha mahalla naga xureeyay arintaas رئيس عمر عبد الرشيد يا عبد الرحمن وكم هسيين وزير بدل الجوجي ويجلسوا دعوة عبد الرحمن عكمله وزير كلمات بدو عمر وزير كاشان ليجا جوريله شريف حسن النيروبي الجوجي كله أسود دعوة أيوة قيلنا يصوع مركا الحمد لله إلى محل تاس حاجة سأوجد بينا وسود وين نقعان كمحكمة ده هل كاسو عنك قرنينا شرع وسيد وفي عين Soomaaliya iyo Kenya maanta ma tartami karaan laakiin sharcigu nin xoog leh iyo niman xoog leh kala ma yaqaan
waxaan nagala rabo waxa waaye dad sharciyadeed inaan naqano marka sidaasaan dowlad ku naqon karnaa oo macno ku samayn karnaa dalkan mushkiladiisu waa sharcigoon la ixtiraamaynin waxa ugu horeeya sharciga duminayna waa madaxda shacabka Soomaalida waa dad fiican dowladnimada jecel diyaar u inay hoggaansamaan laakiin mushkiladu waxay ka jirtaa madaxda dalka marka waxaan rabnaa in dad sharci aan naqano qodobkaasna halkaasaan rabaa inaan uga gudbo waxaan rabaa inaan ku ammaano madaxweyne xasan tilaabada asaga iyo xukuumaddiisii go'aanka ay ka qaateen maxkamadda inay geeyaan aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin sidaas oo kale madaxweyne farmaajo ku adkaysiga oo ku adkaystay in maxay ahaato arrintu maxkamadda ay ku dhammaato asagana waa ku mahadsan yahay waxaan rabaa sidaas si lamida injineer saalixi raxmatullaahi calayhi iyo looyarada muna inaan ku ammaano dadaalkii sharci ee ay sameeyeen ee keenay guusha maanta aan u taagana ilaahay ha u naxariisto injineer saalixi aniga ma baranin laakiin runtii nin qiimo badan inuu ahaayaa lee sheeg qof aan jecelahay inaan arko ahaay anoo la ballansanaana ilaahay oofsaday subxaanahu wa tacaala ilaahay ha u naxariisto intaas markaan ka gudbo guushan waa guul Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeedna haddaa taariikhdooda fiiriso garab waxa uu Allah subxaanahu wa tacaala khataraha laga soo badbaaday oo mid hadda ugu dambeysay ay tahay badda ilaaha looga mahadcelinaa subxaanahu wa tacaala marka waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo bad iyo dhul iyo cir ma ilaalin karno iyo dadka joogaba haddaanan dowladnimada xoojin waxaan noogala baahan yahay marka inaan dowladnimada xoojino dowladnimaduna waxay ku dhisan tahay heshiis ummadeed heshiis ummadeedna waxay u baahan yihiin la dhowro maxkamadda adduunka dadka hadda garsoorka ka ahay waxaa malena hal nin oo Soomaaliya ku jiro soo saas ma laakiin waxay gaareen dadka reer galbeedka waxa ay ka shaqeynayaan inay run ka sheegaan ma u malaynaya hadda waxay noogu xishaan maanta inaan leenahay laakiin qof walba wuxuu ilaalinayaa professionkiisa waxaa nagala rabaa sidaas si lamida inaan gaarno oo qofka shaqada loo dhiibay siday taa uga soo dhalaalo marka aad fiiriso ummadaha horu marana waxa ay ku dhisan yihiin waa intaas annagoo muslimiina annagoo ahla annagoo qaraabo ah in aan maalin walba isku tumanno ballanta aan ilaali weyno dowladnimada aan ilaali weyno qofka garabka u baahan aan garab istaagi weyno arrintaas arrin fiican ma ah nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam inuu soo baxo waxyaabaha u ahay horudhaca waxaa ka mid ah carabtii quraysh ee magaalada maka deganeed waxay ku heshiiyeen qofkii dulman inay garab istaagaan qofka daalimkaana inay celiyaan taasna waxay keentay inay u diyaariso nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam oo khaatamul anbiyaa ah oo furqaanka loo soo diray in la soo saaro waxyaabaha ilaahay ka difaacay reer Maka waa badnaayeen laakiin waxyaabaha aad loo xasuusto waxaa ka mid ah asxaabul fiil marka aan u jeesano dowladnimada inaan xoojino inaan garab istaagno dadka u baahan garabka in la garab istaago aan wada istaagno sharciga inaan ilaalino taas aan ku gaari karnaa guush waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo dalkan wuxuu leeyahay siyaasad soo jireen ah oo xilliyadii dambe socotay oo ah 4 sanaba in la isdoorto xalka kaliya oo dalkan loo haayo waxa waaye 4 sano markay dhamaato doorasho in la galo hadda already sanada la dhaafay Sooma waa dhaqan aan fiicnayn waxaan rabnaa inaan dul istaagno sanad ma aha bil ma aha maalin ma aha saacad hadda wixii ka dambeeya
in la wada ogyahay saacadda doorashada 4 sano soo socota ilaa aysan loo gaaro kaas wuxuu keenaa kalsooni wuxuu keenaa deganaansho wuxuu keenayaa dadku si nadiif ah inay u tartamaan yaa sheegi kara maanta maalin doorasho dhacaysa yaa yaqaan qof taqaana ma laha to be honest senatara la soo saaray hadda iska joogaan ka warramaydo waxba la dooranin oo sanadku noo dhamaaday wax sax ma aha mas'uuliyiin aan nahay dad waaweyn aan nahay runtii ceebay nagu tahay arrintaas inaan ilaali weyno nidaamka yar ee noo qoran annaga ay ceeb nagu tahay dalkan sida la sheegayo 80% in ka badan waxaa bixiya adduunka waxayna ixtiraamaan adduunku shuruucda u taala in lagu kaalmeeyo oo adiga sharcigaaga ay ilaali weyso waxay keenay gacmaha in laga laabto maxaa ka dhalanaya marka dalkan annaga kaliya ma joogno wax badanaa jooga wax badan oo jooga waxaan uga adkaa karnaa dowladnimada inaan xoojino haddaa is leedahay Soomaalidu waa muhiim oo laga maarmo waa laga maarmaa Soomaalida Afghanistan waa laga maarmo anagoo u jeednaa maalin cad laga soo tagay waxaa la rabaa inaan wax garad waa nahay laakiin marxaladda la joogo iyo muhiimadeeda inaan garanno waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada arrinta doorashooyinka inay dedejiyaan maalin aan wax la qaban karin inaan isfiirino lama rabo dalkan wuxuu ku socdo waa nidaamkiisana waxaa asaas u ah doorashooyinka 4 sano oo mar la qabanayo waa la soo dhaafay gadaal uma fiirinayna hadda waxaan leenahay hadda hala dedejiyo ha loo qabto si wanaagsan oo cadaalad ah dadka Soomaaliyeedna maanta baahi waxay u qabaan inay arkaan madax cusub oo kalsooni ay siiyeen oo soo doorteen oo ay ka sugaan inay xaqiijiyaan himilooyinkooda marka waa la soo dhaafay wax walba waa soo aragnay 30 sano la soo dhaafay 20 sano ka horeysay 10 sano ka sii horeysay khibraddeena dowladnimo waa intaas sida gudoomiye Cabdi Xaashe uu sheegay waa yarta dowladnimada inta aan ka naqaan laakiin waa inaan hore u soconaa kuwa naga dambeeya hore u socdo markaan hoos u sheekaysanayno inaan dad caqli badan aan sheegnaa laakiin caqligu wuxuu ku imaanayaa caqliga jamaaciga caqliga wadajirka caqliga dowladda dhisay caqliga ummadda isu keenay kaasa caqli marka la hambalyo aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh